soo dhawaada asxaabta qiimaha badan ee ku xiran channelka tina faafiya u sii share garay asxaabtina like-ta iyo share-tana naga ilaawin insha Allah si uu gaaro walaalaha kale ayagu wili aan taalacan fawaa'ida ka socota channelka. soo dhawaada waxayni hayaa geed aad iyo aad u fawaa'id badan in laga faa'iideystanayo aad iyo aad u fiican tahay. geedkaas loo yaqaan karkaday oo waayadii dambe soo galay wadankeena oo soo gaaray dadkuna ay isticmaalaan isagoo ay ka dhigtaan sharaab noocyo kalena loo samaysto oo shaahna laga dhigan karo sida qaabka shaahna loo samaysan karo ay jira laakiin dadkeena inta badan waxay u samaystaan sida sharaab ahaan oo kale ay u samaystaan. geedkan waxaa ka buuxda fawaa'id aad iyo aad u fara badan oo cajiib ah oo caafimaadka kor u qaadaysa qofka bini'aadanka. kuwa ugu muhiimsan haddaan ka soo qaadano ilaa 6 qodob ka kooban oo midba mid ka sii fiican yahay ayaan insha Allah soo gudbin doonaa. nambarka koowaad wuxuu ilaaliyaa beerka oo uu ka ilaaliyaa sunta soo gasha beerka uu qabto cuntooyinka qaarkood ay keenaan ayuu ka saaraa meesha qofka markuu cabo geedka loo yaqaano karkadayga. lambarka labaad dadka dhiig karka qaba kana uu hagaajiyaa oo meesha ka saaraa dhiig kacsan ayuu dejiyaa oo hoos u dhigaa. lambar 3 wuxuu qani ku yahay fiitamiino aad iyo aad fara badan oo jirka ka caawiya inuu si heer sare u shaqeeyo. lambar 4 cholesterol kana meesha ka saaraa ama subagooga dadka qaarkood ay qabaan jirkooda ku jira iyagana meesha ayuu ka suuliyaa oo ka saaraa. lambar 5 dadka inta badan ka cabanaya inuu miisaankoodu sareeyo ama culus yahay haday cabitaankiisa joogteeyaan geedka iyo aad ay u dejinayaan miisaanka ay ka cabanayaan inta badan dadka ka cabanaya miisaanka iyo culayska. lambar 6 wuxuu ka hortag u yahay infekshinka jirka soo gala iyo bakteeriyada labadaba meesha ayuu ka saaraa oo jirka wuxuu ka ilaaliyaa inuu soo galo wax infekshin oo jirka dhibaya iyo bakteeriyada iyaduna jirka dhibay ee daarada ku ah ayuu meesha ka saaraa. geedkan loo yaqaan karkadayga dhibaatooyinku keeni kara waxaa kamid ah hadii la basado cabitaankiisa oo qofku xadkiisa dhaafiyo wax walba xadkooda la dhaafiyo dhibaatooyin bay keenaan. inuu dhiigaaga hoos u dhigo oo dhiigaagu yaraado ayuu keeni karaa oo markaa madax xanuun iyo xanuuno kale markaa kugu soo darsaan. markaa qofku waa inuu si tartiib ah qaliil ah u isticmaalaa waa inuu iska badin oo si xad dhaaf